mucaaradkii ayaa waxa ay leeyihiin waxaan soo bandhigaynaa doorasho nooca aan doonayno bisha 10keeda oo madaxweynaha dowladana ay ku eg tahay 15 May iyagana waxay leeyihiin 10ka ayaan soo bandhigaynaa. marka waxaan la yaabanahay mucaaradkii shalay isu haystay madasha mustaqbalka, madasha samata bixinta, madasha nooca boqolaal madal ay mucaarad ku midaysan yihiin ayaan arkaynay. laakiin maanta waxaan aragnay mucaaradkooda waxaan nahay mucaaradka beesha hawiye. waa wax la yaabay, waa waxaan laga sugayn in ay waxa maanta u xuub siibteen. waxaan nahay mucaaradka beesha hawiye ama mucaaradka deegaanada Muqdisho. war dalka waxa loo tartamay waa federal mucaarad midaysan ee Soomaali ee runtii waxa Xasan Sheekh Maxamuud ama dawladiisii ka hor yimaada waa waxaan sugaynay. laakiin ma aanan sugayn in waxa Xasan Sheekh Maxamuud oo asagaba nin hawiye ah in la yiraahdo waxa anagoo ah mucaaradka hawiye. ma kursi maamul goboleed ayaa runtii waxa ku dagaalamaysan, ma kursi federal ayaa ku dagaalamaysan. waa waxa sharafta runtii waxa ay karaamadooda ay ku baabi'iyeen madaxweynayaal hore, mas'uuliyiin hore, ra'iisul wasaareyaal hore. wax runtii waxa laga xishooda in maanta waxa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre iyo Rooble Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo rag kale oo fara badan oo runtii dhalinyaro wasiirro u badan caynta oo kala ah iyo Sanbalolshe in ay maanta leeyihiin waxaan mucaaradka hawiye. war meeshan ma hawiye tartamaya mise Soomaali ayaa kursiga u tartamaysa? aawa Soomaalidii kale, aawa ummadihii kale, aawa ummadihii shalay aawada socoteen madasha mustaqbalka aad runtii waxa la wadaagteen, aawa madashii samata bixinta. waa wax su'aal waxa runtii dad badan ay isweydiinayaan maanta in ay runtii heerka gaarayaan. waa waxaan la filin inay maanta u xoobsiiteen hawiye, baritan ay u xoobsooban doonaan qabaa'ilo yaryar oo waxa sida basashii u sii kala furfurmi doona. waxaan maqli doonaa mucaaradka beesha hiraab, mucaaradka beesha nooca ah. marka runtii inay heerka gaaraan waa wax laga xishoodo, waa wax laga xumaado, waa waxaan marnaba la filin inay dhacaan. in maanta waxa raggii aan islahaynday waxa dalkan ay badbaadinayaan inay waxa shir jiraad intay qabtaan ila soo fariisan ay yiraahdaan waxaan mucaaradka beesha hawiye. I don't know, ma garanayo aniga sida aan ku fasiro, laakiin dad badan waxa ay sugayeen meel wax la yiraahdo meeshii laga sugayo ayaa caad ka yimid. runtii mucaaradka kama filayn inay maanta waxa beel u xibsiibtaan, laakiin waxay dadka tuseen sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo runtii waxa ay ahaayeen inay maanta dhacday iyagoo lahaa 4 sano ayagoo ku midaysan madal fara badan, madal mustaqbal iyo madal samata bixin ayay waxa doorasho noocooda soo bandhigi waayeen. maanta iyagoo hawiye ah ayay leeyihiin waxaan soo bandhigaynaa doorasho 10ka bisha May. war doorashada soo bandhigaysaan ma qoriba madataan marka doorasho kale hadda uma jeednee waxaad idinku madala oo Soomaali ku kooban aad soo bandhigi weyseen inaad idinku qabaa'il ah qoribaad waxa qorshaha iyo waxa doorashada nooca soo bandhigaysaan. waa garan la'anahay ummadda Soomaaliyeed waa ku warartay. marka bal waxa wax la yaabo in maanta waxa nimankii mas'uuliyiinta ahaa in ay leeyihiin waxaan nahay beel nooca ah. waxaan laga filin, waxaan laga sugayn, waxaan runtii waxa ummadda Soomaaliyeed ay ka naxday rag mas'uuliyiin ah. marka bal runtii waxa idinka dhageysanaa bal aragtidiina sidee idin kula muuqataa madal ummad ku midaysan ee Soomaali ah in maanta waxa madaxweynihii Soomaaliyeed war asagaba waa hawiye, asagaba waa idinku beel. marka cid idinka yeelaysaa asaga oo hawiye aan ka tuurno anagu hawiye ana saara cid idinka yeelaysaa habeeraatay ma jiro. siyaasad iyo aqli iyo midnimo Soomaaliyeed la imaada, midnimo Soomaaliyeed ana deeqdo. runtii waxa Xasan Sheekh waxa dooratay midnimo Soomaaliyeed xildhibaano Soomaaliyeed 275 xildhibaan iyo 54 aqalka sare ee Soomaali ka kooban ayaa dooratay. laakiin anagu hawiye ah ayaa maanta waxa runtii doonayna kursiga yaa hal qabiil siiyay. waxa siyaasad waa loo tartamaa, ummadda Soomaaliyeed waxa wada tartanta waa kursi ka dhaxay ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo waxa loo yacada ilaa iyo raas kamboon ummadaha degan ee Soomaaliya qaarada sibanka ayaa u tartanta. laakiin anaga kaligan ayaa maanta waxa kula dhagayna kursiga. shacabka Muqdisho ku dhaqan waa uu yaaban yahay. waxa runtii waxa soo bandhigteen waxa aan idinka sugaayo, laakiin shacabku waxay idin leeyihiin ummadda amaanka iyo nabadda runtii ku naaloonaysa magaalada Muqdisho runtii qorshe kale oo la imaada doorashada noocay tahay bal waxa wanaagsan soo bandhiga.